soo dhawaada saaxiibada SMTT waa mar kale iyo barnaamij cusub muuqaalkan maanta waxaan doonayaa inaan adigan haatan dabanay muuqaalkan ee dhalinyarada ah inaan kugu hadlo laga yaabo inay maskaxdaada wax badan ku soo kordhiyaan waan wada ognahay dhamaanteen waxaan nahay dhalinyaro kuma bisi jirta dadka daawada channelkan intooda badan waa dhalinyaro aad u dayar welina ku dhex jira markaas da'dii 20ka sidaas ay tahay waxa jira caqabada aad u fara badan oo haysta hadii aan nahay dhalinyarada ku nool wadanka yani wadankeena Soomaaliya ayaan ka hadlaya kuwa ugu muhiimsan haba ahaadaan inaad ka cabanayso shaqo la'aan wadankii oo shaqo la'aan ah sidoo kale inaad ka yar cabanayso wadankii oo aysan oolin waxbarasho balse tan labaad waxaan dhigi karaa inaad ku yar qaldan tahay sababtoo ah wadankeena waxbarasho way taala balse midda ka maqan ayaa waxbarashadeena inaysan tayo lahayn tan koobaad waan kugu raacay wadankii shaqo ma lahan shahaadad haysataa dugsi sare degree master waanu qaar haatan in kamid oo muuqaalkan daawanaya inay heestaan ugu yaraan degree amaba dugsi sare welina markaas aysan helin maalgashigii lagu sameeyay aysan ka miro dhalin taas waan ognahay dhamaantan oo waxay kamid tahay caqabadaha markaas haysta halkan maanta waxaan doonayaa inaan kugu soo gudbiyo marka waliba qaybaha ugu dambeeya muuqaalkan afar xirfadood oo aan markaas dhihi karo waa afar aad u muhiim ah maantadan oo aadan waxba haynin ka faa'iideysan karto markaas amaba aad baran karto samxay tolo birito la dhihi karto waxaan leeyahay xirfad amaba skills noocaas bedelkii markaas aad waqtigaaga qaali ku lumin lahayd social media xirfadahan aan maanta halkan kugu sheegi doono waxaan dhihi karaa 100% waa kuwa aad u muhiim ah qof walba dhalinyaro ah markaas inuu geliyo waqti si uu u barto hubaal maanta maalin aan ahayn ayuu wuxuu dhihi doonaa maalintii aan baranay xirfadan waxaan qaatay go'aan fiican xirfada koobaad aan doonayaa inaan kugu taliyo adigan dhalinyarada ah energy iyo waqti intaba helaya waxay tahay xirfadan la yiraahdo video editing ama haddii aan si Soomaaliyan kugu sheego muuqaal samaynta qaarkiin waan ogahay haddii ay maqlaan video editing waxay leeyihiin waxaan xirfad maahan waa wax iska meelay yani balse waxaad ogaataa muuqaal samaynta ama muuqaal editingka inay tahay xirfad caalamiinaha caanka ah qofkiina markaas si dhameystiran u barto wax badan ka saacidi doonto tusaale haddii aan kugu soo qaato maalin walba waxaad isticmaashaa YouTube-ka aad muuqaal ka daawataa muuqaaladaas tirada badan markaas YouTube-ka ku jira mid aan la soo edit garin kuma jiro dadkii soo edit gariya haba ku kala duwanaadaan xirfadan editingka waxaan ku leeyahay xirfadan video editingka runtii waa xirfad aad u muhiim ah maantadan maalin aan ahaynin oo ay meel ka soo saari doontaa tan koobaad aan kugu talinayo waxay tahay marka inaad barato video editing su'aasha aad haatan isweydiinayso waxay tahay marka ma haysto laptop runtii uma baahnid inaad laptop haysato anigan haatan kula hadlaayo haddii aan tusaale ahaan iska soo qaado markii la yiraahdo laptop wax ku edit garay ama mobilkaaga wax ku edit garay runtii waxaan aad u jeclahay inaan mobilkii wax ku edit gareeyo sababtu waxay tahay mobilka markaad wax ku edit garanayso ma dareemaysid culays aad u fara badan inkastoo markaad computerka wax ku edit garanayso oo waqti badan save ku noqonayo uma baahnid inaad laptop haysato taasna ma ahan mid cudurdaar ku noqonayso maantadan haddii aad haysato mobile isla mobilkaas aad wax ku baran kartaa marka qayb kamid ah editingka tusaale ahaan haatan haddii aan ku dhaho muuqaalkan jajar muuqaalkan qaladaadka ka bixi oo aadan garanaynin dhibaatadeeda ay leedahay marka waxaan 100% ku soo jeedinaa ama ku talinayaa inaad xirfadan video editing barato umana baahnid inaad tiraado hal bil ama wala bil ayaan doonaa xirfadan video editing dan inaan ku soo gabagabeeyo kaliya waxaad samaysaa waqtiyada aad firaaqada leedahay amaba bedelkii aad social media waqtigaad ku lumin lahayd hebel baa sidaas sir hebel baa sidaas tiri kaga faa'iideysa markaas waqtigaaga xirfadan adigoo barta tan kale oo aad haatan isweydiinayso waxay sii noqonaysaa marka xagee baan ka bartaa ma iskuul baan u xaadiraa ma online ka baan ka bartaa ma koorsooyin baan iibsadaa runtii uma baahnid inaad koorso iibsato uma baahnid inaad iskuul xaadirto haddii aad haysato internet ku qor video editing markaas barnaamijka aad doonayso ha ahaado Adobe Premiere Pro haddii aad computer helayso ha ahaado KineMaster ama markaas barnaamijyada kale oo la midka ah haddii aad mobile kaliya isticmaasho oo aad doonayso inaad wax badan ka barato video editing waxaa kugu talinayaa inaad barato application-kan KineMaster runtii waa application-ka aan kugu talinayaa marka inaad barato halkaas aan kaga gudbino marka xirfada koobaad ama skills-ka koobaad oo nafsadaada birito la anfici doona tan labaad ama xirfada labaad aan doonayna kugu taliyo uguna faa'iideysto waqtigaaga waxay tahay xirfadan la yiraahdo web design runtii waa xirfad aan inaba caadi haynin kuna shaqaysan karto lacagna aad ka samayn karto adigoo markaas jooga gurigaaga web design haddii aan yar idin faahiyo dadkaan aan fahansanaynin waa dadkaan sameeya markaas website-yada maalin walba waxaa hubaala inaad booqato website nooc doon ha ahaado midkaas aad booqanayso ee aad arkayso quruxda badan la soo qurxiyay maskax ayaa ka dambeysay maskaxdii ka dambeysay marka adigana waad noqon kartaa oo waad baran kartaa xirfadan bedelkii aad waqtigaaga qaali ku lumin lahayd social media Facebook WhatsApp Instagram markaas xirfadan web design-ka aan kugu sii daray uma baahnid inaad taqaano coding-ka program language-ka kaliya waxaa kugu filan marka WordPress-ka haddii aad WordPress luuq fahanto goortaas waxaad tahay qof web designer ah tan aad haatan weydiinayso waxay tahay marka xagee baan ka bartaa web design sidee baan u bartaa runtii 100 mar ayaan kugu celinayaa 1000 jeer ayaan kugu celinayaa ku leeyahay maantadan haddii aad haysato internet uma baahnid inaad iskuul xaadirto jaamacad xaadirto
internetkaas gudihiisa maanta waxaa kugu jiro kumanaan milaayiin macluumaad oo markaas nafsadaada ama shakhsiyadaada aad ugu dhigi karto markaas qof sidii dayaxii oo kale u nuuraya kaliya waxaad samaynaysaa bartaan YouTube-ka aad haatan iga daawanayso ayaad waxaad ku qoraysaa tusaale web design tutorial waxaad helaysaa muuqaalo 2 saac soconayo 3 saac ama 1 saac oo wax walba aad doonayso inaad kaga ogaato web design lagu sharaxayo haba ahaadan intooda badan ajaanib aysan luqadda Soomaali ku hadlaynin balse waan luqadda Ingiriiska inaad wax yar ka fahmayso maadaama aad tahay qof iskuul soo maray ama wax barasho soo galay uma baahan marka inaad nafsadaada ku tiraado qof Soomaali oo sharaxaya ayaan doonayaa kaliya dadkaas waxay sameynayaan haddii aad adigana baraagtiis ahaan u samayso aniga ayaa ku dhahay waxa tahay qof designer ah yaqaanana markaas xirfadan web design-ka aan kugu sii daray xirfadan maantadan haddii aad doonayso inaad website lagu design gareeyo doontana markaas qofkii website-ka ku design garinaya wuxuu ka qaadanaya ama qiimahan uu ka qaadanaya lacag gaaraysa $350 ilaa iyo $200 marka xirfadaas haddii aad barato waxay ku noqonaysaa marka mid aad ku shaqaysan karto aad bay muhiim u tahay marka waqtiga aad firaaqada leedahay inaad kaga faa'iideysato xirfadan labaad tan saddexaad aan doonayo inaan kugu la wadaago halkan waxay tahay programming language ka dadka aanan fahmaynin haddii aan ku yara faahfaahiyo waxay tahay maalin walba waxaad isticmaashaa WhatsApp ama YouTube ama Facebook ama Instagram applicationaas yacniga ay waqtiga ku luminayso waxaa soo sameeyay qof title-kiisu yahay programmer ama app developer sidoo kale waa la yiraahdaa marka xirfadan programming language-ka waxay ku sahlaysaa inaad samayso application sidoo kale inaad develop gareyso softwares kala duwan si aad u noqoto app developer ama software developer waxaad u baahantaa marka inaad barato xirfadan la yiraahdo programming language ama coding-ka runtii xirfadan waxaan dhihi karaa waa xirfad adduunweynaha maantadan caanka ka ah yacni qofkii yaqaanana runtii aad iyo aad loo doonayo welibana mushaarka ay qaataan dadka xirfadan yaqaana waana mushaar aan maskaxdaada gelaynin marka waqtigaaga aad ku lumin lahayd Facebook WhatsApp ama markaas inaad qof la doodo maanta oo dhan waxa aad kugu talinayaa inaad barato xirfadan oo waxaan doonaynaa haddii aan Soomaali nahay qof programming language-ka aad u barta dabadeedna markaas inooga shaqeeya shirkadahan maantadan caanka ka ah ee aadka loogu yaqaano adduunweynaha ee Google, Apple, Microsoft waxaad shaqo ka doonan kartaa markaas shirkadii aan haatan kuu soo sheegay umana baahnid markaas inaad haysato shahaado sanadii barkoor waxay isku raaceen haddii aad tahay qof xirfadla ah yaqaanana programming language-ka inaad noqon karto markaas qof ka shaqeeya shirkadahooda marka adigan dhalinyarada ah waqti iyo energy intaba haya kaga faa'iideysa marka inaad barato xirfad cusub tan afraad uguna dambaysan ee maanta doonayna halkan kugula wadaago waxay tahay inaad barato graphic design runtii waa idan xirfad aad u cajiiba kagana faa'iideysan karto inaad barato waqtiyada aad firaaqada leedahay waxba aadan haynin aan ku yara faahfaahiyo xirfadan dadka aanan fahansanaynin waa dadkan sameeya markaas sawirada aad ku qurux badan amaba si kale oo aad fahmayso aan kugu sheegay borarkan aad maalin walba aragto ee ganacsiyada lagu haysiiyo dadkii soo design gareeyay ayaa waxaa la yiraahdaa markaas graphic design inkastoo graphic design laftiisa uu noocyo fara badan leeyahay tusaalahan haddii aad maanta web designer tahay waxaad u baahantaa marka inaad hesho qof isagana graphic designer marka waxyaabahan aan maanta kuu soo sheegay oo dhan intooda badan way isgelayaan tusaalahan si aad web designer dhammaystiran u noqoto waxaad sidoo kale u baahantaa marka inaad graphic design waxaad ka fahansan tahay si aad video editing dhammaystiran u noqoto sidoo kale waxaad u baahantaa marka inaad sidoo kale graphic design aad wax ka fahamsan tahay marka waa waxyaabo intooda badan isku xiriirsan xirfadan design runtii waa xirfad maantadan ay Soomaalidii fahamtay waxaan naqaanaaba dad xamar jooga oo xirfadan ku shaqeysta noloshoodana ka maaraya marka waxaad samayn kartaa adigana xirfadan inaad barato Britole waxaad rajayn kartaa marka inaad xirfadii ku shaqeysato maadaama aad xirfadii baratay waxaad dhigi kartaa xirfadan waan naqaanaa waan ku shaqeysan karaa marka saaxiibayaal afartan xirfadan maanta idin soo sheegay runtii waa kuwa aad u muhiima noloshaadana maalmaha kamid wax badan ka bedeli kara aad iyo aad ayaan kuu dhiirigelinaa marka inaad barato waqtiyada aad firaaqada leedahay ama markaas hawl aad u muhiima aadan haynin waan ogahay waxaan nahay dhalinyaro inta badan waxaan waqtigan ku luminaa Facebook WhatsApp Messenger ama xitaa YouTube kan laftiisa taasna runtii maanta maalin aan ahayn ayaad ka qoomamay doontaa oo waxaad dhihi doontaa maxaan Facebook iyo YouTube waqtigayga ugu lumiyay waxaadna kale ogaataa waqtigaaga inuu yahay shayga ugu muhiimsan ugu qaalisan ee markaas ku soo mara uga faa'iideysan markaas sida ugu quruxda badan uguna habboon afartan xirfad ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu kuu noqdo shidaal oo dhiirigelin ka qaaday aad baan kaga mahadcelinayaa daawashada aad ku soo gaartay ilaa dhamaadka waaniga Cusmaan oo idin leh